haddii aad tahay daawado cusub waxaa jirta qayb koowaad oo aan kaga hadalnay Iiraan isla markaana aan ku soo gudbinay qaar ka mid ah xogaha asaasiga ah. qaybtan labaad ayaana sidoo kale idinkula wadaagaynaa xaqiiqooyinka inooga dahsoonaan kara dalkan ay Shiicadu ka taliso. Iiraan ma adeegsato jadwalka ama kalandarka galbeedka, balse waxay adeegsataa mid hijriya oo Farisiya, waxayna ku magacaabaan jadwalka ama kalandarka imaamiga, waana mid ay u tiiriyaan imaamyada Shiicada ee gaaraya 12 imaam. waxayna aaminsan yihiin in imaam walba yahay bil ka mid ah kalandarka, taasoo ka dhigaysa bilaha kalandarka 12 bil. waxaa dhacday 7 dhalinyaro ah inay iska duubeen fiideo ay ku heesayaan kuna dheelayaan ayagoona muuqaalkaasi ku faafiyeen baraha bulshada. heesta ay ku heesayeen waa Happy in Tehran oo ah hees ay ka soo koobiyeen heesta caanka ah ee Happy ee uu ku luuqeeyo Pharrell Williams. haddaba maxaa ku dhacay dhalinyaradan? dhammaantood waxaa loo dhaadhiciyay jeelka, waxaana lagu xukumay 6 bilood oo xabsi ah iyo in lagu dhufto 91 jeedal. laakiin xukunkan waa laga cafiyay, waxaana mar kale lagu xukumay inay ka soo muuqdaan TV-ga qaranka cafisna weydiistaan xukuumadda iyo shacabka Iiraan. 1978 ilaa 1979 waxaa dalkan ka dhacay kacdoon islaami ah oo ay horboodayeen hogaamiyaasha Shiicada, waana marka ay dhalatay jamhuuriyadda haatan u babacdhigaysa Israa'iil iyo Mareykanka. sida uu shaaciyay Ayatollah Khomeini, waxaa kacdoonkan inta uu socday ku geeriyoodeen 60,000 oo qof oo ka soo horjeedeen xukunkii boqor Shaah. 60,000 ee geeriyootay waa tiro uu sheegay Khomeini, waxaana la sheegaa in tirada rasmiga ah ee ciidanka boqor Shaah dileen in ay gaarayaan 5,000 oo ruux. haddaba marka uu kacdoonkan guuleystay isla markaana la yagleelay jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan, waxaa sidoo kale caan baxday oraah ah shaydaanka weyn oo ay ula jeedaan Mareykanka, maadaama ay ku eedeynayeen Mareykanku inuu kheyraadkooda boobi jiray xilligii boqor Shaah. laakiin waxaa dhacday markii uu Ayatollah Khomeini xilka la wareegay in Iiraan hub ka doonato Mareykanka iyadoo Israa'iil u sii maraysa. kolkaasina waxay Iiraan la dagaalamaysay Ciraaq, waxayna tani noqotay fadeexad loo yaqaano Iiraan Contra ama Iiraan Jet, waxayna fadeexadan dhacday 1985. sanad walba 1 bisha Abriil waxaa loo dabaaldegaa dalkan maalinta jamhuuriyadda, waxaana la xiraa goobaha guud iyo goobaha gaarka ah si loo bogaadiyo dastuurka ka hana qaaday dalkan 1979. Iiraan waxay ballan qaaday in $3 milyan oo dollar siinayso qofkii dilaa Salman Rushdie oo ah ninka alifay kitaabka Aayaad Shaydaaniya. kitaabkan waxaa ku qoran oo uu sheegayaa in aayadaha qaar ee Qur'aanka Kariimka in aysan ahayn qowlka Alle. Iiraan waa mid ka mid ah dalalka caalamka ee walxaha maanka dooriyay ugu badan ay sii maraan si loo gaarsiiyo dalalka Yurub, waxaana la sheegaa 95% daroogada taala Azerbaijan in ay sii marto Iiraan, waxaana intaasi sii dheer in Iiraan xal la wadaagto dalka Afghanistan oo ah dalka ugu badan ee lagu beero walxaha maanka dooriya. xukuumadda Iiraan waxay xoogga saartay inay ka takhalusto ganacsiga xooggan ee gudaha dalkeeda dhexmara. qofkii la qabtaana asigoo daroogada gudbinaya waa mid lagu rido xukun daldalaad ah. ciyaarta shacbiyadda ka leh dalkan waa kubadda cagta, wuxuuna xulka dalkan koobka Aasiya ku guuleystay 3 jeer, halka uu 4 jeer uu ka qayb galay koobka adduunka, waxayna shacabka dalkan aad u qiimeeyaan. ciyaartii ay Mareykanka kaga badiyeen 2 gool ee ka tirsaneed koobkii adduunka ee la qabtay 1998. ciyaarta polo isla markaana Farisiyiintu u yaqaanaan Jukan waxay ahayd mid qadiim ah oo dalkan ka jirtay 2500 oo sano ka hor, taasoo kolkaasi ahayd ciyaar boqortooyo. waxayna Iiraan leedahay xadaarad fog oo ka badan 4,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga, taasoo ka dhigtay Iiraan mid ka mid ah dalalka ugu ilbaxnimada fog. shacabka dalkanna waa kuwa doorbida inay dhulka fadhiistaan marka ay rabaan inay wada cunteeyaan. garabaatiga la xirtana wuxuu ahaa mid ay shacabka dalkan iska diidaan waqtigii kacdoonka, maadaama ay aaminsanaayeen in loola jeedo calaamadda Kirishtaanka. laakiin waqti badan kadib fikirkaasi wax badan ayaa iska beddelay. waxaa lagu tilmaamaa oo loo yaqaanaa ragga waaweyn ee aan guursan magaca naamad oo loola jeedo kuwa aan rag ahayn ama wax matarayaal, waana sababta badanaa ragga dalkan durba u wajahaan guurka
ayadoona ay xusid mudan tahay inay dowladda qarash ku bixiso taageeridda guurka.